nebi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lama suurad xumayn karo weligeed kama dhicin ruushka taariikh ahaan weliba taariikhdan casriga waxaasoo dhan ruushka waa ka mamnuuc islaamka dhowaan ayaan ogaanay inaan waxyaabo badan oo muhiim ah ka midaysannahay waxaanuna nahay hal ruushka waagii hore doqonnimo ayaa haysatay sababtoo ah ruushku xoogga ma saari jirin daraasaadka la xidhiidha arrimaha mustaqbalka dadka iyo nolosha laakiinse hadda ruushku lacagta ugu badan ayuu ku bixiyaa dhinaca daraasaadkii ugu dambeeyey waxaan ku ogaanay in muslimiintu adduunka ugu mustaqbal fiican yihiin in islaamku mustaqbal fiican leeyahay markaad eegto dhinaca bulshada iyo dhulka muslimiintu ay degaanba sababtoo ah waxay ka soo horjeedaan qowmuluudnimada aad ayay u tarmayaan 70% muslimiintu waa dhalinyaro waddamo biljamku u horreeyo iyo kuwo kale oo yurubteenna ahba 20 sano wax ka yar 70% dadka waddamadaas ku nool muslimiin ayay noqonayaan sida daraasaadku sheegayaan waa sax dunidu taran ayay u baahan tahay noloshuna sidaas ayay ku sii socon kartaa sifooyinkaas aan soo sheegay oo dhan u malayn maayo in cid kale hadda laga helayo intaasna raalli baan ka nahay runtii intii dagaalka Ukraine socday waxaan ogaanay wax badan bulshada islaamka ee dalkeenna waxaa nooga soo baxay haliyeeyo aan gabashada aqoon oo wax taray guud ahaan ruushka waxaan raaligelin ka bixinay wixii khalad ahaa oo muslimiinta xaggeena uga yimid maanta oo uu ruushku dagaal ka galay dhinaca Yurub waxaan xaqiijinayaa in aan dawladda Raashiya weligeed aanay ku hamin aanay qorshayn in dal kale dagaal ay ku qaado iyo inay qabsato toonna laakiinse Raashiya waa lagu khasbay dagaalkaas Ukraine inay gasho sababtoo ah reer galbeedku waxay damceen inay albaabkeena nagu xiraan taasina suuragal maaha Ukraine si kasta oo caqli ku jiro ayaan ula hadalay laakiin way fahmi weyday wixii aan u sheegaynay khaladkeedana wixii ka soo baxay maanta ha qaadato annagu la qaybsan mayno Ukraine markan ha la garnaqsato kuwii dagaalka geliyay dagaalka Ukraine oo sii dheeraada waa la og yahay cidda ku khasaaraysa waxaan aad uga xumahay waxyaabo badan oo ka soconaya dunida daafaheeda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan Falastiiniyiintii ku dhintay dagaalka iyo qoysaskooda waxaan ka soo horjeednaa waxa ka socda Gaza oo noqonaya dambi dagaal iyo gabood falrayd sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadka Israa'iiliyiinta ee xubnaha qoysaskooda ku waayay weeraradii 7 Oktoobar laakiinse waxaan ka digayaa in dadka aan waxba galabsan ee rayidka aan lagula xisaabtamin dambiyada ay dad kale galeen iyo inaan dagaalka loo fulin si waafaqsan mabda'a caanka ah ee mas'uuliyadda guud haddaba aan u soo laabto fariin kale oo aan rabay inaan idiin sheego reer galbeedka ayaa abuuraya nacayb diimeed si ay u kala qaybiyaan dunida oo ay u qaybsadaan iyagu adduunka si ay u sii ilaashadaan waxa loogu yeero nidaamka cusub ee adduunka oo u dhiganta xukun iyo dib u gumaysi islaam nacaybka iyo arrimaha diimaha waxay u isticmaalaan hub iyo hanti badan si adduunka oo dhan loo khalkhaliyo reer galbeedku waxay arkaan oo kaliya nidaamkooda caalamiga iyo sidii ay u xoojin lahaayeen iyo sidii loo xakamayn lahaa madax bannaanida waddamo madax bannaan si ay u kala qaybiyaan inta badan adduunka waxay isticmaalaan habab isku mid ah muslimiintu badankood sababo jira way ka soo horjeedaan yuhuudda waxayna ku baaqaan dagaal lala galo gaalada shiicadu waxay ka soo horjeedaa sunniga waana wax la abuuray si loo kala qaybiyo isla muslimiinta dhowaan waxaa isku soo dhowaaday Sacuudiga iyo Iiraan waxay ahayd tallaabo fiican dhanka kale masiixiyiinta Orthodoxiska waxay ka soo horjeedaan Kaatoliga sidaas ayay ugu badisaa iyaga Yurub waxay indhaha ka qarsadaan aflagaadada iyo burburinta lagu hayo xaramka muslimiinta waddamo dhowr ah dambiilayaashii naasiga ayay weli ammaanayaan Ukraine hadda waxay u dhaqdhaqaaqaysaa sidii ay u mamnuuci lahayd kaniisadda Orthodoxiska si loo sii qoto dheereeyo kala qaybsanaanta kaniisadda hadafka dhammaan falalkaas iyo islaam nacaybka
وإن لكرديو ربشدها يحسلون درهذا أدونك يا إن لك لقيبيو رقمضة ديوغا ديمها أدونك يا إن لك عيو إسكهر كينكا البحنموينكا reer galbeedku waxay ka hadlaan nooc ka mid ah nidaamka cusub ee adduunka kaas oo nuxurkiisu aanu isbedelin munaafiqnimo laba wajeelinimo sheegasho gaar ah adkeynta xukunka caalamiga ah oo ah ilaalinta nidaamka asaasiga ee dib u gumaysiga ruushku waxaasoo dhan ma doonayo raashiya waxay diyaar u tahay duni isxushmaysan nabad ku wada noolaata isla markaana kala faa'iidaysata mana doonayso ganacsi khiyaamo ku dhisan iyo khasab hadafka ruushku waa wada ganacsi la wada faa'iidayo kala qaybintaas dunida ee reer galbeedku abuurayaan waxaan hubaa in islaamku inuu yahay kan ugu habboon ee u babacdhigi kara soona afjari kara sababtoo ah waa bulsho kalsooni leh adkaysi leh oo aan aaminaadooda laga leexin karin haddii wax kasta loo isticmaalo sidoo kale islaamku wuxuu leeyahay sifooyin wanaagsan islaamku cunsuriyad ma ogola nacayb diimo kale ma ogola amar ku taaglayn ma ogola sidani waa sida ugu macquulsan ee dunidani ay ku wada noolaan karto siyaasadda dalalka islaamkana waxaan jeclahay inay sidaas ku dhisan tahay wadamada islaamkana siyaasad ahaan waxaan soo jeedinayaa inay diidaan in dhowr dal inay dunida rabitaankooda ku khasbaan